الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواad akhyaarey channelkan Nuuriya waxay noo tahay waqti fasaxan wali ku jirnaa fasaxii weynaa wali ku jirnaa saacadu 11 waxaan doonay maanta inaan ka hadlo 5 arrimood oo muhiim ah oo Ilaahay nagu manaystay oo bini'aadankuna ka maarsameyn marka shantaas maxay yihiin kow waxa weeye dugsooni sida maartay haddaan imika tusaale ahaan soo qaato ilmaha yar hooyada marka uu yar yahay hooyada wuxuu jecel yahay inuu dhabteeda ku jiro hooyada wuxuu jecel yahay inuu gasheeda ku jiro hooyada wuxuu jecel yahay inuu dugsado ayuu jecel yahay sidoo kale dadka waaweyna waa u baahan yihiin taas waa ta koowaad ta labaad qofku wuxuu u baahan yahay nabad deganaansho imika haddaan kasoo qaado waddanada dagaalka oo kale dhibaatooyinka ka socdo oo kale qofku nabad buu u baahan yahay walwal buu ku jiraa maalin kaste sidoo oo kale maanta haddaad shaqo joogta aad haysatid walwal kuma jirtid oo de waxaad ka walwalaysid baa iska laakiin haddaad shaqo temporary oo kolla dhammaanayso kolna aad helayso kolna dhammaanayso kolna aad helaysid aad haysatid taa walwal baad ku jirtaa iyaduna marka qofku wuxuu u baahan yahay nabad iyo wax daa'iman oo sura oo maaragtay uuna ka walwalayn oo joogtaa ayuu u baahan yahay ta saddexaad wuxuu u baahan yahay bulsho oo fiican oo ku hareersan oo uu wixii wanaaga uu la qaybtami karayo markay dhibaato haysato uu sheegan karayo bulsho isku xiran bulsho iscaawinaysa bulsho lagu degan yahay taas waa ta saddexaad ta afraad wuxuu u baahan yahay qofkii in la aqoonsado in la qiimeeyo oo la aqoonsado qofku wuxuu qabtay in la idhaahdo maasha allah walaalka wax badan baad wax fiican baad kusoo kordhisay bulshada maasha allah maxay ahayd shaqo fiican baad u qabatay bulshada marka qiimeyn iyo aqoonsi iyo qofku u baahan yahay tashanaad waa wax muhiim oo ugu baahanahay waxa weeye waxaasina qofku inuu noloshiisa horumariyo ayuu rabaa markastaba ilaahay qofku inuu madaragta wax barto qofku inuu shaqo qabsado qofku inuu caafimaadkiisa bedelo uu wanaajiyo qofku inuu noloshiisa hagaajiyo qofku inuu reerkiisa hagaajiyo hadday wax ka khaldayn hadday khaladkiisu hadduu khalad sameeyo inuu hagaajiyo yacni wax badan ood qabsan karaysid oo isbedel aad ku samayn karaysid reejo marka ilaahay shantaa waxoodba uu inasiyo inagu manaystay waayo maanta nin dugsooni aan doonin ma jiro nin nabad aan doonin ma jiro maxay ahayd nin bulsho fiican aanan doonin ma jiro nin in la aqoonsanaado aanan doonin ma jiro qof inuu hore u socdana ma jiro markaa shantaa waxood waa 5 muhiima oo ka numaarsameyn laakiin markaad sida runta aad eegtid bulshadeena Soomaaliyeed markaad eegtid shantaa waxood inay wax ka dhiman yihiin amba ay ka maqan yihiin ayaad u aragtaa waayo dadkeeni isma odhan caruurta hooyooyinkii amba waalidkii ma odhanayaan ilmi yara xasilnooni ma tusayaan inagii dhexdeena xasilnooni isma tusayno oo dugsoon ma tusayno isma dugsanayno maxaa ku idhaahdaa nabad iskaba dhaafka waa adiga arkaya meel kasta waa dagaal iyo buuq iyo qaylo waxba laguma heshiinayo wax deganaansho ah ma jiro waayo bulsho ahaan taasina waa arin bulsho ahaan taasina waxba inaga khaldan qiimeyna iskaba daaba warkeyga waayo qofkii walaalka markuu wax fiican soo gudbiyo uu soo siyaadiyo in la qiimeeyo oo la aqoonsado wax uu soo gudbiyo weji laakiin inagu cagsigeegaan sameynayna inaan iscadaadino
inaan maad aragtay waxba isku aqoonsanaan weyno, inaan waxba ku heshiin weyno. waxayo miran bay naga dafa way naga buuxa. iyo markaa dhibaato waxaa jirta qofkeeni maan aragtay damca inuu wax qabsado, inuu hore u maro, inuu wax tiigsanaya markuu bulshadiisa usoo bandhigo uu idhaahdo walaalay waxaasaan rabaa inaan qabsado, walaalay waxaasaan rabaa inaan gaadho, uu wax tiigsanayo bulshadiisa usoo bandhigo, waxaaba jirtaba inay bulshadii qofkii ayna taageerin amba ayna ku dhiirigelin amba maad aragtay ayna odhan wallaahi waa wax arrin wanaagsane ku soco, inayba odhanba inaa caqabado badan lagu soo xaba jiraba. waa negative. qofkii markuu waxaasi maqlo niyaddii baa ka xumaanaysa amba niyaddii baa ka jabaysa, marka wax uu lahaa tiigso halkiibaba ku daayaba. marka bulshadeenu waa bulsho maad aragtay caqabad isku haysa amba maad aragtay dhibaatooyin maad aragtay iyaga dhexdeedii dhibaatadii isku haya amba maad aragtay istaageerayn. marka waxaa ka fiicnaan lahayd ina maaragtay 5 waxood lagu dadaalo. ta ugu horeysa dugsooni, ta labaad qofkii nabad iyo deganaasho, ta saddexaad bulsho fiican, ta afraad qofkii aqoonsi iyo maad aragtay la qiimeeyo, ta shanaad inuu wax qofku wax qabsado, uu wax tiigsado, uu wax gaaro, uu isbedel ku sameeyo noloshiisa, hadday tahay xag tacliin, hadday tahay xag caafimaad, dhiirigelin inaan isu siina weeji. waayo waxaad arkaysaa bulshada kalen dhukan ugu nimidna markaad aragtid ilmaha yaree ay haysta dadka waaweyn iska daa aba sheekadooda, dadka yaryara caruurta yar hayso ina waxna waxa ma fahmaya ilmuhu, laakiin uu fahmaya wax waliba. oo maanta subaxdii markuu soo kaco hooyo sidee tahay, maad fiican tahay, si fiican maad u seexatay, aad siisid qiimeyn, aad siisid inaad ka warahaysid, aad tustid ood aad uu qiimo kuu leeyahay aad tustid, waa muhiim. xitaa markuu wax qabto wow good job mama, shaqo fiican baad qabatay, halkaa kaga sii hay, waad fiican tahay, dadaal sa. markaa ilmihii dhiirigelin baad siinaysaa. xitaa markuu imika iskoolka uu bintu fiican soo qaado, uu dhibicyo wanaagsan uu keeno, u sheeg oo dhiirigeli oo waqti sii, oo waxaad tirahda hooyoy maanta shaqo fiican baad qabatay, hooyoy maanta dhibicyo fiican baad qabatay, hooyoy maanta wax wanaagsan baad qabatood kusoo kordhisay noloshaadii, halkaa kaga sii hay, sidaad maad aragtay bilitaankaaga uu u noqdo mid maxay ahayd dhibicyo fiican aad haysatid oo kuu noqda dhiirigelin oo maad aragtay wanaag. midda labaad waxa uu jecel yahay wax weyn yuuna noqonin, waxa uu jecel yahay xitaa cuntada yar hadduu maanta uu ka helo barandhaha, usoo gad barandha, maanta si fiican baad u shaqaysa hooyo, wakaya barandhihii cun. amba maanta wuxuu ka helaa maxaan ku idhaha wax yar uu ka helo uu jecel yahood og tahay, usoo qaad oo u haadiyadee oo ka dhac maamay maanta se waxaaba qabatay waxanaa kuu soo iibiyey. ilmihii farxad buu noqonaya, maanta wixii uu qabtay mayna britol uu sii xoojinayaa, uu sii dadaalayaa. marka wixii wanaagsan inaan soo bandhigno oo inagu siduu inoo anfaco oo bulshadeena u anfaco, oo maad aragtay ummadda kalena aan u nimidnay wixii fiican aan ka qaadano, wixii xunna aan iska dhaafno. xitaa caruurtooda markay naxariista ay tusay madaxaysa ugu salaaxayaan oy leeyihin si wax fiican baad samaysay ay leeyihiin, laakiin inagii war naga amo warsa hadal jikaar ayaan wadnaa. markaas ilaahay wax khayr qaba hayna waafajiyo, oo maad aragtay shantaa shaya muhiimka ee ilaahay inagu manayst inaan inagu iska qaadno maaha, oo inaan inagu maad aragtay dhibaato isku keeno, caqabad aan isku keeno maaha. ilaahay baa inagu manaystay, marka inaan ku dadaalno weeji, oon maad aragtay ka faa'iidaysano hadiyadda uu ilaahayna siiyey, oon hore u socono, oo maad aragtay aan isku hanayno, amba maad aragtay aan isku dhiirigelino, amba isku walaalkaa waxa aad u jecesha walaalkaana aad la jeclaatid, oon ku dadaalno. waayo markaan inagu fiicnaano oo maad aragtay reerkeenu fiicnaado, bulshadu waa maxay
waa reer loo geeyey. Marka hadday reerkii uu fiicnaado bulshadiina way fiicnaanaysaa, ummadda kalena waxaan tusaynaa sumcad fiican, sumcad wanaagsan baan tusaynaa, dhexdeennina waan iskacan qabanaynaa. marka waxaa muhiima 5 waxood ee ilaahay nagu manaystay inaan ku dadaalno. waa maxay? dugsoon. waa maxay? nabad iyo madaragtay deganaansho. waa maxay? bulsho fiican ood kasoo jeedid, aqoonsi iyo madaragtay qofkii oo la qiimeeyo iyo horow socod, inaad noloshaada wixii fiicanna hore u wadid, wixii xunna aad bedishid. 5 shay baan Soomaaliya inaga tegayaa. ilaahay meeshaad joogtiina ha inagu nabad yeelo. sidaa iyo fideoga kale xigaadan hadalka igi dheereeyna iga raali ahaada. wakaas maca salaama.